السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhowr faa'iido oo laga heli karo isticmaalka lugaha qaybta hore ee jikinka ayaan ku sheegayaa maanta. Faa'iido ugu horreyda waa inaad ka hesho collagen ama maadada loo yaqaan collagen taasoo si dabiici ah jirkeenu inta badan u haysto, laakiin haddii uu ku yaraado keeni karta in qofku uu develop gareeyo xanuunyo badan. Maadadaas marka waxay naga caawinaysaa inta badan oo naga caawisaa in maqaarkeenu noqdo mid qurux badan, sidoo kale timuhu aysan naga daadaan ama noo adkaadaan, cijiyahana sidoo kale waa fiican tahay. sidoo kale waxaa laga helaa lugaha qaybta hore ee jikinka calciumta maadada la yiraahdo. maadada calciumta waxay aad u fiican tahay lafaha oo adkeeda, sidoo kale waxay ka hortagtaa caabuqa kala goysida oo loo yaqaan arthritis, waxay naga ilaalisaa lafuhu inay burburaan. waxaa kaloo ku jira maadada loo yaqaan iron iyo zinc. labadaas maado waxay inta badan qayb ka qaataan in waxyaabaha suntaana jirka laga saaro, sidoo kalena dhiigga qofka haddii uu yaryahay uu sare u soo kaco, difaac badanna qofku uu samaysto. waxaa kaloo laga helaa maadada loo yaqaan haddii la kariyo oo maraq ahaan loo cabo maraqeeda la cabo lugahaas, maadada loo yaqaan gelatin. maadadaas waxay aad ugu fiican tahay hagaajida dheefshiidka qofka, waxayna ka hortagtaa calool istaagga. waxaa la soo jeediyaa inta badan in maraq lahaan loo kariyo waxa la yiraahdo chicken feet soup ama maraqa lafaha doorada laga sameeyo, in maraq ahaan loo sameeyo ayaa la soo jeediyaa, markaasna maraqaas la cabo. inta badanna waxaa la sheegaa in daawo dhaqameed ahaan looga isticmaalo wadamada qaar oo qofku marka mataqaana uu dareemo daal badan iyo muuqaal xanuun badan la siiyo. marka intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena maanta. subscribe, share, comment.